dadka qaar waa ku qanceen dadka qaarna kuma qanceen jawaabta taasaan runtii ah marka falcelinaan suubin doonaa maxaa nagala gudboon haddaan nahay jaaliyadii Soomaalida Columbus Ohio sidee carruurtan u badbaadin doonaa arrinta Mareykanna way ka socotaa maxaa inooga xal ah maxaan qaban karnaa kaliya waan soo koobaynaa ka bacdi waxa waaye halkaas aan ku gabagabeynaa intaan ganaanadkii gaarin yaa falcelinta koowaad ka sameynaya speechkeeda Muniro oo qabo dadkii daawadeen sheegaynaa oo joogay qofkii rabo oo falcelin ka sameynayo hadallada Muniro waxa kamid ahaa aniga waxa dhahday waan ku soo darooka baad way hadal aan care ba yaal safety wada su'aashu waxay tahay marka safety ilmaha yaa waajib ka saaran yahay taas ku shaqo dinay safety cunuga waajib ka saaran yahay waalidka dhalay halka asraad maskaxda safety of the children and it's so responsibility of the parents macallin baa shaqo ku lahayn qof dooran oo xildhibaan shaqo ku lahayn marka taas laga xariiqo كذا وقصوا وحاء من سؤال أو إذا تربنا وإذا كم لها شرعي مع عند LGBT حصلاً discrimination نرجع استعني على كذا أما بنين وعنها وكم بس قصوا حكوا سؤال أو إذا كلنا يعني والدين يعني والد حد أبيسف سؤال شو نقول سا كيف بدن والد أبيسف كاي متك متك عن أي شيء يعني متك عن كيف بدن المها جعل كوباد وكمل ولا كل ما ذا والد إلهي وقوع مسؤول إلهي مثل ما إلهي معناها جاهل قفك يبغى مكانه عنو كان قويديس أبيس الوقوع مسؤول وجد والد مها حاجات وحياة لي لكن بقول كيبا majority جوده والد وأنا أحسن بعضهم هذا ربنا مسكح رقو مركا عن أشياء هذا الكاه يعني safety of the children موجودنا هذا الكاس معلم لها وأنا ما سوينا هاي برضو كلنا إياه annaga u taagan safety of our kids waxaan kaloo fireynaa mustaqbalka ilmaheena annaga soo garana ayada ma ilaahay horta badbaadiye laakiin macnaha cost hadda u joogno waxa loo hubiyaa cost badbaadinaya cost-ka Muniro ka codayeen bilka yoos yaala wada qofku baa wakana wax ilmo wanaag wax macnaha qof ka hor imaaday ilmo wanaag u hayo ma jirto yaan dadka macnaha siyaasiyiinta aysan qaldin yaan dadka been loo sheegin soo baxaya waxaan ku soo afmeerayaa runtii badankeena biilka house bill 8 iyo house bill 6 waanu aqrinay again marka dadka gadaal ka imaaday labadii biil gacanta ku hayaa waxaan ka codsan lahaa inay aqriyaan qofkii rabo anoo falcelin ka bixinaya xildhibaan Muniro Cabdullaahi labadii su'aal si ugu jawaabtay kuma qancin hadallada way ka meermeertay si bataatna ayuu meertay in biilka house bill 8 the parents bill of rights oo xuquuq siinayo waalidiintana ay xaq u leeyihiin carruurtooda waxa baranayo inay ogaadaan macallimiinta iyo iskuulkana uu kala tashto ayuu ahaa waa cad yahay biil aniga maxameda gabadheeda kindergarten sanadkan awards school bilaabayso walaac iyo walwala ayaa iga hayo iskuulka muxuu bari doonaa maxaa loo dhigi doonaa buwaagtee la barayaa buwaagta qoomuluudka la barayo xaq muu leeyahay ama klaaskaas inaan kala baxo gabadheeda haddiiba ka waran iskuulkii uu i ogeysiinayn gabadheeda wax la barayo waa anti-immigrants waa anti-muslims republicaanka mana jeclo madow ayaa nahay waa basically xisbi caddaan oo aaminsan Christian philosophy xisbiga dimuqraadiga ahaa aan u cararaynay aan la safneenna family values ki hadda uu ka tagay family wax walba aan kula joogno oo immigration aan kula joognay iyo minority rights aan kula joognay laakiin hadda muxuu u soo dhigtay family values ki carruurteeni meeshii ugu dambeysay maxaa noo xala haddaan muslimiin ah Mareykan nahay ma ka cararnaa ma republicana aanaa mise annagoo dimuqraadi aan dagaalanaa بس حزبي كلام سمعنا وحنا من سنة هاي 10 ير
michigan magaaladii sheekh astax magaceeda hampshire magaalada michigan waa dimuqraadi waxaa loo codeeyay ayagoo dimuqraadiya waxay dhaheen homosexual right iyo calankan pride flaga iyo lagama taagayo magaalada yartaas dimuqraadi baan nahay family values aan qiimeyna dadkeena waxay rabnaana suubinayna waa ku guulaysteen annaga xaafadeena 43219 ismaaciil ayaana matalo majoritigana soomaali waayo waa dagaalami karnaa iskuullada waa ku dagaalami karnaa burkeeda walaalayaal waxaan kusoo gunaanadayaa qof walbow caruurta ku cishan laheyd mas-uuliyad ku saaran waaye wiilkii saaka asoo cabdi ah kaa tegay galabta asoo caashayo kuu soo laaban والله وقصنا example a serious issue. Okay, good question. School ما فرطان. School كا Islamic school لذا هذا وين لا فرع أو private school عجل لو بهيا. Private school مركز هذا هذي وجاب كأنها العكب بحس. 12,000 باكيت. يا أول الصومالي عم بيلودرنا أفريقيا كنا بيلودرنا. أجينا هذا issue تاجن واي. فملي جينا شق في ضوقه فوق تاجن فملي صومالي. ما يقعرك بحين كرتا Islamic school. تاسع كهالله محاول بربيو يس ميتنا ذا عن تكنو منيرة إسماعيل كلية أنا كنت جناني لفت جيدا سكول بوردا عن تكنو عن كقب قلنا عن تكنو سكول بوردا كلمة أها سنة ترى أنا بدنا سنة ترى وراكم ودرنو كل جن لبدنا اللي ما كلية الصومالي هاي أنا أترك جريني لفت جيدا عاطفتي أنا قادر يسوع يسمعين ذلك منين لكن كل قد مثلاً تراجع تقول الله واسع قبل وتواصل كل ما تاع مهمة درنا يجيش يا وسكول بوردا لو بولس كيكسو جرا يا برشة ديمقراطية وسكول بورس كوان سكول بوردا مساجد يا شو ويراس دين مساجد أكون مسكولنا والله وجه فان والله يا الصومالي كلمة ثلاثة 8 إلى 9 رقار كلام مسجد الرحمة كسر على طاولة جونا عربابين والله واجب هل مساجد مكانه يا هل مساجد كمان مساجد كمو شيخ حسن كهل جمع عليها درتان خرسيد نو كهل شيخ خرسيد نو كهل لكن إنف ما سجال مساجد علينا حتى إسكولها لسان أنا سميان يا دوي أبغى هلين دارت مو أبغى هلين وي أولا إنه إسكول سميان لسان نو لسان يا هذا وارن والله هذا البو باهني من أكشن أو باهناي مساجد أكشن أو باهناي كل السجال كمساجد أكشن أو باهناي جنا حسيت الصومالي أكشن أو باهناي شهر سكول كوارتن هورايزن وحوس سميه هدرتان graduation هدرتان هي وحوس سميه عيال كي graduate جريني أيو rainbow flag يقدر لغو صور graduation الشهادة مركي والدين تويدين وحقوق هاي محا يدينك السؤال عشان كلي وقفتان جوابته أساسي يعني هورايزن هو وقتها سكول تركيش وليه هواي إسلام كورا عيني إسلامنا عروتن وكيسنيني أيجي يا بلاباي كوي إسلام ما أوجيني أيا بلاباي ميدان مركي لو يدي محد هن محا سؤال تيم هوا وابد يسأل سؤالين كارين سو استقبال